High Legend waa anigoo Cali Kaamil goobta furitaanka waxaa nala barayaa soo saaraha muusiga Bollywoodka ee isla weyn Shakti Kumar waxa uu xukumaa tartanka heesaha carruurta ee heesaaga kale markay siisa dhibco ilmo quruxsan Shakti wuu soo baxaa oo wuxuu bilaabaa inuu caayo wuxuu ka dhigaa ilmaha isagoo ka faaloonaya in quruxdiisa aanay ahayn karti tani waxay keentay fadeexad weyn Shaktina waa laga qaadacay ururka fanaaniinta jilaaga filimka waa gabadh 15 sano jir ah oo lagu magacaabo Inzia oo la nool qoyskeeda muslimka ah ee magaalada Baroda qoyskooda waxay ka kooban yihiin aabba Faaruq hooyo Najma iyo walaalkeed Guduud Faaruq wuxuu afkiisa ku garaacay qaladaadkii ugu yaraa oo sidoo kale aflagaaday Hindiya maalin maalmaha kamid ah Inzia waxay ka soo laabatay safar dugsi waxayna aragtay hooyadeed oo xidhan muraayadaha qoraxda markay kaligood joogaan way siibaysaa iyadoo muujinaysa inay indho madow leedahay Najma waxay meesha ka saartay inay tahay shil laakiin gabadheeda way garanaysaa sababta dhabta ah ee nabarkan keenay weli murugootay Najma oo waxay dareemaysaa ciirsan la'aan inaysan waxba u qaban karin si ay u caawiso hooyada iyo gabadhu waxay leeyihiin damaanad aan mid kale lahayn guriga dumarka lagu barto karinta iyo nadiifinta Najma waxay u dagaalantay in Hindiya ay xaq u leedahay inay aado dugsiga waxay sidoo kale India ka dhigtay heesaa hibo leh kadib markii ay siisay gitaarka iyadoo uu lix jir ah riyada Inzia waa inay noqotaa heesaa xirfad leh laakiin way ogtahay in aabaheed yahay ilaaliyaheeda wiligeed run ma noqon doonto intii ay maanta tareenka ku jirtay waxaa loo sheegay tartan heesa oo ka dhaxeeya dugsiyada halkaas oo uu guulaystuhu helayo laptop arrinkaas ayay Najma u sheegtay waxayna go'aansatay inay ogolaansho weydiisato aabaheed markuu uu shaqada ka soo noqdo si aad ayay u naxday Najma markay aragtay Faaruq oo niyad xumo ka muujinaya cuntada sababtoo ah Najma waxay ka ilowday milix saxankii wajigeeda ayuu ku tuuray oo qolkiisa ayuu galay Inzia way ka gaabsatay inay wax ka weydiiso tartanka waxayna ka baqaysaa inay ka xanaajiso isaga tani waxay u noqotay qoys caadi ah Hindiyana way ka daashay maalintii xigtay Inzia waxay ku soo noqotay guriga si ay u aragto laptop miiska saaran Najma ayaa u soo iibisay sababtoo ah waxay ahayd sababta Inzia u weydiin weyday ogolaanshaha aabaheed shalay Hindiya waxay u dabaaldegtaa iyadoo hooyadeed tustay waxyaabo badan oo internetka ah isbuuca soo socda isagoo Faaruq maqnaan doona dayaxa ayay dhaafaysaa laptopku wuxuu farxad u keenaa qoyska oo qaabka kaliya ee madadaalada u ahaa telefishinka ilaa hadda dabadeed Inzia waxay go'aansatay inay samayso muuqaalo YouTube-ka iyadoo heesaysa laakiin waxay ogaatay in haddii ay muujiso wajeeda aabaheed uu ogaan doono markay aragtay murugadeeda Najma waxay soo jeedisay inay xidhato indho shareer habkaas dhagaystayaashu waxay diiradda saari karaan heesta aabaheedna ma aqoonsan doona iyada Inzia waxay hees asal ah u qaadaysaa muuqaalkeedii ugu horreeyay waxayna ku dhijisaa magaca Secret Superstar oo looga jeedo xidigtii qarsooneed waxay sugtaa in laga bixiyo comment nasiib darro wax comment lagama bixin maalintii ugu horreysay dhowr maalmood kadib Inzia way ka qoosatay YouTube-ka oo way sii wadatay nolosheeda laakiin isla maalintii xigtay waxay dareentay in ka badan 11,000 oo qof inay daawadeen fiidiyogeeda oo dhammaantood u bogaadiyeen codkeeda Najma way ku faraxsan tahay iyada laakiin waxay ka cabsatay in ninkeeda uu helo dareenkan waxay xasuusinaysaa Inzia inay ka taxadirto internetka maalintii xigtay Faaruq waxa uu ku soo noqday guriga oo safar bil qaatay ka yimid oo uu arkay laptopka Najma waxay u sheegtay inay ahayd hadiyad ay siisay Hindiya adeerkeed oo jooga Mumbai ninku ma weydiin su'aalo dheeraad ah way ku farxeen arrintaas dhowr maalmood kadib wuxuu aadayaa safar kale isla markii uu baxay Inzia waxay la soo baxaysaa laptopkeeda oo sameynaysa muuqaalo labaad markan waxay ku luuqaysaa hees iskeed u qortay oo ku saabsan hooyadeed heestaas oo noqota mid qaraxda hal maalin gudaheed dhammaadka bisha wajigeeda waxa uu ku yaalaa wargeysyada kadib waxaana la baray mid ka mid ah ardaydii ay isku fasalka ahaayeen ee Hindiya oo lagu magacaabo Chintan aad buu u jecel yahay oo sanado ayuu maqlay iyadoo heesaysa maalin maalmaha ka mid ah Chintan waxa uu weydiiyey inay tahay xidigta sirta ah sababtoo ah wuxuu ogaaday inay isku mid yihiin Inzia wax walba way u sheegtaa waxayna ka baryaysaa inuu qariyo Chintan wuu ku faraxsan yahay inuu caawiyo wayna ku faraxsan tahay inay ku kalsoon tahay isaga oo ku filan inay la wadaagto wax walba habeenkii Inzia waxay dhex maraysaa emailkeeda markay aragto mid ka socda soo saare muran dhaliyay Shakti waxa uu halgan ugu jiraa siduu u heli lahaa kadib markii la qaadacay markaa wuxuu weydiistay Inzia inay timaado Mumbai si ay isaga ugu duubto hees laakiin ma xiisaanayso way maqashay murankiisa waxayna rumaysatay inuusan ahayn qof ku habboon in lala shaqeeyo xilligan Faaruq markuu arrinkaas ogaado wuu xanaaqay wuu eedeeyay gitaarkeeda oo burburiyay isagoo ka dalbanaya inaanay dib dambe u haysan isagoo xanaaqsan Hindiya way ka argudanaysaa taas oo ka dhigaysa mid aad u kacsan ugu dambeyntii Najma waa inay soo fargelisaa si uusan u dhaawacin gabadheeda fiidkii xiga qof kasta wuxuu isu diyaarinayaa inuu aado arooska qaraabada Faaruq ayaa ka codsaday xaaskiisa inay xidhato katiinad dahab ah oo uu hadiyad hore u siiyey laakiin inay iibisay silsilad si ay ugu iibiso laptopka India waxay iska dhigtaa inay ka dhex raadiso armaajooyinka
waxayna la gariiraysaa cabsi. Insiya way ogaatay arrintan waxayna soo jeedinaysaa inay iska dhigaan inay luntay. si kastaba ha ahaatee Faaruq wuu maqlay iyagoo hadlaya oo runta daaha ka qaadaya. Raaga ayaa indhihiisa ka bidhaamiyay isagoo ku dhawaaqay inaysan tegi doonin arooska maanta. Insiya waxay ogaatay in hooyadeed ay dhibaato ku jirto oo ay iyadu eedeeda qaadayso laakiin waxa ay tiraado ma joojinayo arrinku. wuxuu dharbaaxaya xaaskiisa oo ku amray carruurta inay gudaha u galaan qolka. Insiya waxa ay gacmaha ku haysaa gudhu oo ooyeysa iyadoo aan awoodin inay maqasho qaylada hooyadeed. In yar kadib qayladii ayaa istaagtay oo dibadda u carartay si ay hooyadeed dhulka ugu aragto. waxa ay ku tuurtay laabtoobkeeda balakoonka iyadoo ka baryaysa cafis. hooyada iyo gabadhu waxay daawadaan laabtoobkii jabay iyagoo arkaya dhammaan riyooyinkooda iyo rajadooda oo ku burburaya indhahooda hortooda. maalmaha soo socda cidna lama hadlaan. Jintaan wuxuu dareemay dhaqanka yaab kale ee Insiya oo waxay ka farxisay dugsiga. dhowr maalmood kadib Faaruq wuxuu daha ka qaaday in loo wareejinayo magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga una kaxeynayo qoyska oo dhan. xitaa wuxuu u diyaariyay guurka Hindiya wiil ay saaxiibo ahaayeen. Hindiya waxay si buuxda uga soo horjeedaa guurista Riyaad iska daa in la guursaday. waxay si gaar ah uga xanaaqday hooyadeed sababtoo Najma way ogeyd in Faaruq uu qorsheynayo balse weligeed uma sheegin Hindiya. kadib Insiya waxay daawanaysaa TV-ga markay maqasho war ku saabsan soo saaraha muusiga Shakti waxa oo haysata qareenka furiinka ee ugu wanaagsan dalka. haddii Insiya ay raali ka noqoto Shakti waxa laga yaabaa inuu ku xidho qareenka hooyadeed isla markaana uu caawin doono. maalintii xigtay waxay weydiisatay Jintaan teleefankiisa oo wacday soo saaraha. wuxuu diyaar u yahay inuu tigid u diro Mumbai maalintii xigtay. subaxdii xigtay way xirxiratay boorsadeeda oo iyadoo aadaysa dugsiga. waxayna tigidka diyaaradda ka heshaa Jintaan oo daabacay. marka dugsiga gaaraan daaqadda ayay si dhuumaalaysa uga soo boodaan oo gidaarkay ka soo boodayaan. Insiya ayaa u mahadcelisay ka hor intaysan cararin. keligeed ayay diyaaradda raacdaa markii ugu horreysay nolosheeda. gegada diyaaradaha ee Mumbai nin wax sawira ayaa sheegay inuu u joogo si uu u soo qaado. inkastoo ay baqdo haddana way raacdaa oo waxay gaadhay stuudiyaha halkaasoo Shakti iyo kooxdiisa ay ku sugayaan oo si buuxda uga soo horjeeda sida loo sawiray warbaahinta. si kastaba ha ahaatee heesta uu rabo inay qaado ayaa ka baxsan aagga raaxada. waa hees kor u kac ah oo leh halqabsi badan oo ay tahay in wax badan laga bedelo. Shakti wuu ka naxay faallooyinka sababtoo ah way saxan tahay. waxa uu qoray hees 10 sano ka hor ah waxaana markii hore la rabay inay noqoto laxan R&B leh. laakiin maadaama soo saarayaashu ay maalmahan rabaan heesaha xisbiga wuxuu wax ka bedelay ereyada si ugu habboonaadaan dhadhankooda. wuxuu diyaar u yahay inuu la dagaalamo soo saarayaasha haddii Insiya ay rabto inay ku haysto qaabkeedii asalka ahaa. way ogolaatay oo si qurux badan ayay u haysiisaa. dhammaadka heesta qof kasta oo stuudiyaha ku jira ayaa u sacabtumaya iyada. in yar kadib Shakti waxa uu kaxeeyay gegida diyuuradaha oo u sheegay lacag bixinta laakiin Insiya way joojisay isaga iyadoo oo sheegtay inaanay doonin lacagtiisa balse ay doonayso caawinaadiisa. waxay doonaysaa inay la kulanto qareenka furiinka ee xaaskiisa. markii hore Shakti ma raba inuu u geeyo naagta sababtoo ah way necab tahay isaga. laakiin markuu arkay in Insiya quus tahay waxa uu qabanqaabinayaa ballan usbuuca soo socda. Hindiya waxay ku soo noqotaa gurigeeda dhammaadka maalinta iyadoo aan cidina ka shakin. toddobaadka soo socda waxay mar kale u duushay Mumbai isagoo Jintaan caawinaya. Shakti wuxuu u keenayaa xafiiska qareenka. Insiya waxay u sheegtaa wax walba oo ku saabsan waalidkeeda waxayna ka codsataa caawimo. naagta waxay siisay gal waraqa ah waxayna weydiisay inay keento saxiixa hooyadeed. haddii ay saxiixdo oo ay u tagto booliska Faaruq waa la xirayaa. markaas wixii ka dambeeya kaliya kama dacweyn karaan rabshad laakiin sidoo kale waxay heli karaan heshiis furiin ah. fiidkii Insiya waxay ku soo noqotay guriga oo waxay hooyadeed u sheegtaa waraaqaha iyadoo faraxsan laakiin Najma kama jawaabto. way ka naxday in gabadheeda ay u duusho magaalo kale. Najma waxay dareensan tahay in qof kasta uu go'aanku isagu gaar u yahay ayna ahayn iyadu inay u doorto. Hindiya waxay hooyadeed ku tilmaantay fulay aan u hadlin noloshooda. way joojisay la hadalkeeda iyadoo si fiican u qabta in Najma ay wax walba qalad ku leedahay. kadib galab Insiya habaryarteed waxay ugu yeertay sharkeeda ixtiraam darada hooyadeed. waxay daha ka qaaday in markii ay Najma uur lahayd Faaruq uu rabay inuu ilmaha iska soo rido. Najma waa la garaacay waxaana loo qaaday isbitaalka balse way carartay. kaliya 10 bilood kadib ayay la soo noqotay ilmo waxayna ballan qaaday inay iska soo ridi doonto haddii ay gabadh kale uur u yeelato. ma ay yeelin laakiin Insiya oo iyadu ugu yeedhaysa fulay runta kama fogaan karto. kadib markii la ogaado waxa Najma soo martay Insiya waxay diyaar u tahay inay samayso wax kasta ay sheegto. waxay ka tirtirtaa kanaalka YouTube-ka kafeteriyada internetka waxayna isu diyaarsan inay u guurto waddan cusub.
shakti waxay wacday dhowr jeer waxayna siisay caawimo waxa uu diyaar u yahay inuu u waco booliska iyo adeegyada ilaalinta ilmaha laakiin Inzia ayaa gaadhay go'aankeeda heesteeda waxay soo baxaysaa maalmo gudahooda waxayna abuurtaa dareen waxay jaantusaysaa lambarka 1 ee dhammaan aaladaha taasoo ka dhigayso qof caan ah oo dhab ah Najma way ku faantay inanteeda wayna ka niyadjabtay inay ka qoostay riyadeeda dabadeed maalintii ugu dambeysay dugsiga Hindiya Jintan waxay wada hadleen waqti dheer dhammaadkii way ismacsalaameynayaan oo way kala tegayaan markay guriga ku noqdaan qoysku wuxuu u dhoofiyaan garoonka iyagoo wata boorsooyinkooda duulimaadkii ugu horreeyay ay raacaan waa Mumbai kadibna waxay aadayaan Sacuudi Carabiya gegada diyaaradaha ee Mumbai dhibaato ayaa ka dhalatay sababtoo ah shandadaha ayaa aad u culus Faaruq ayaa ku amray Inzia inay iska tuurto gitaarka wayna samaysay sidii lagu yiri laakiin markaas Najma ayaa markii ugu horeysay ka hadashay ninkeeda waxay tidhi waa inay haystaan gitaarkooda sababtoo ah waa lahaanshaha ugu qiimaha badan ee Hindiya Faaruq oo xanaaqsan ayaa gacanta kor u taagay balse waxay ku amartay inuu joojiyo intuu neefsada ayay tiri haddii aad igu dhufato wax ogsoono ma heli doonto wax kale oo aan ahayn inaan u tago booliska oo haddii loo xiro rabshad waxa hubaala inuu waayi doono shaqadiisa doorashada ugu wanaagsan isaga ayaa ah inuu kaligiisa u duulo Sacuudiga sababtoo ah iyada iyo caruurteeda ma socdaan Faaruq ayaa afka la kala baxay wuxuu isku dayay inuu si kale u qanciyo laakiin way soo saartaa waraaqihii furiinka oo way tustay Inzia markay caruurteeda dibadda u soo baxayso ayuu gadaal ka raacay isagoo ka baryay inay maqasho laakiin dhamaadku way baxayaan oo waa inuu kaligii duulaa intaa kadib qoyska waxay aadayaan abaalmarinta madadaalada qaranka halkaas oo Inzia loogu magacaabo heesta ugu wanaagsan nasiib darro kuma guuleysan abaalmarinta laakiin waxa loogu yeeray masraxa marti sharfeed ahaan inta ay u socotay masraxa ayay boorsadii ka siibanaysaa iyadoo aan cidna uga baqayn ugu dambeyntii waxay ka jeedisaa hadal qalbi taabasho leh oo ku saabsan hooyadeed si aad u hesho aflaam xiiso leh High Legend fadlan like share iyo subscribe